asalaamu calaykum asxaabteeda kusoo dhawaada channelka haddii anagu cusubtaa subscribe naga ilaawin haddii anagu xirantaana waxaan ku leeyahay jazakallah khayr noqodkaaga aad iyo aad u mahadsantahay soo dhawaada kulligiin maanta waxaan rabaa topic inuu noqdo waalidiinta markay isku xanaaqaan hooyo aaba markay isku xanaaqaan maaragta ilmaha ku horqeyliyaan ilmaha caafimaad miyay u tahay mise caafimaad darray u tahay okay ilmaha mar walba way kula joogaan laba qof oo guriga isla degana way isku dhacaysaa of course laakiin hadda halkan waa laakiinta weyn marna uma wanaagsana ilmahaaga inay qaylo iyo waxyaabo maaragtay ay arkaan inay maqlaan haddii la isku xanaaqo marka haddii ay dhacdo adiga iyo xaaji inaad isku dhacdaan insha allah ilmaha hortooda hadalla idin isdhaafsataan muhiim waxaa kuwaa mar walba inaa xasuusnaato horta ilmo kale inay meesha kula joogaan ilmo ku dhageysanayan inay meesha joogaan marka in la iskhilaafo dhib ma laha mataqaanaa laakiin waxaa dhib ah in laysku qayliyo in maaragtay laysku afciliyo in ilmahaaga waxyaabaha aa baraysid wax ka duwan haddii adiga ka arkaan then ilmaha confused ay noqonayaan okay so haddii noqoto meel maaragtay xoogaa xasaasiyada ilmaha aadan rabin inay hadalladaas maqlaan waxaad tiraahdaa hadhowti ani adiga ka hadlaynaa hadalkeen hadhowtiaan dhamaystiranayna kadibna meeshaas ku joojiya ilmaha marna uma wanaagsana waalidka inay isku hor qabsadaan ilmaha waxyaabahaasoo kale daamajiga oo tahay waxyaaba aanan maskaxdooda u wanaagsanayn maxaa kale ilmaha waxyaabaha aan barayna waxay tahay in respect la isi siiyo so markii aad la hadlaysid lamaanahaaga ilmahaaga aabahood ama ilmahaaga hooyadood muhiim waxaa ku ah inaad respect ula hadasho hadallo wanaagsanna aa ku dhahdo okay insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.